kulankii lagu waday inay yeeshaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa u baaqday kooram la'aan. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Mudee ayaa sheegay in aan la aqbali doonin in kulanka dambe uu u baaqdo kooram la'aan, isagoona xildhibaanadii maanta maqnaa ka dalbaday inay soo xaadiraan kulamada golaha shacabka, isagoona xusay in shaqo badani ay hortaalo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن أنا مروي هذيكم محسن. هالكي ساعة قدر نهاية تكورم كا مركا هالكي ساعة قدر إني صدق إياه الله بمراي. مركا الله عشان ساعة والله حرية حل ما أنا وحي يقول هذا. حما يحرم لحسة على جارسي. لحسة على هذا الله فينا تطوي ساعة لقطة كهينة. marka laba maalin oo horena oo ogtiin wuxuu baaqanay kooram marka sida hadda wax u jeedo socdaan loo jeednaa marka maana fadaas inaan saada ku sii shaqeynay ku mahadsan hadda waxaan maraynaa 7 saac wax dhiman ku jirnaa كورم كينا دوري طبعا هذا دوري طبعا هكذا ملحق xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxaa loo diray fariin lagu wargelinayo inay soo xaadiraan xarunta golaha waxaana lagu madalsanaa in la horkeeno ajandayaal kala duwan. labo akhrinta koowaad ee xisaab xirka 2018 3 iyo akhrinta labaad ee hindi sharciyeedka nashqadeynta magaalooyinka.